Dhawaad daawashana qiimaha badan waa barnaamijkeena warwareyn. Barnaamijkeena maanta warwareyn aad buu xasaasi u yahay una xiiso badan. Barnaamijkeena waxaynu diiradda ku saari doonaa kagana warrami doonaa dhowr mawduuc oo mid uu yahay Soomaalida iyo Trump iyo dhowrka kooxood ee arrinta Trump siyaabaha kala duwan uga hadlay. Trump iyo Ilhaan baa ishaya, ma Trump iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ishaya, ma Trump iyo Soomaalida ayaa ishaya. Trump iyuu kala jecel yahay Soomaalida. Waase maxay saddexda qaybood aynu u kala saari doono warbixin xasaasi ah iyo sida weyn ee dadka qaarkood ee falwaalida leh igu farciliye. Marka kale daawashana qiimaha badan ee xasaasiga ah ee aan idin hayo waxa weeye Masar ayaa 100 diyaaradood gudaha u gelisay wadanka Falastiin iyadoo oo qarka loo saaran yahay dagaalka aadka u xoogan ee u eg in aan Falastiin laga fidoonin ee dhici doona kaasoo maalmaha soo socda noqon doona mid kamid ah kuwa ugu xiisaha iyo xasaasiyadda badnaa. Waxaa idin hayaa warbixinta iyo tabashada leh ee Israa'iil iyo kooxeedu hadeerto ay ku cataabayaan in weeraro lama huraana iyo weeraro ay ugu yeedheen gaaguntir uu ku socdo kaasoo diyaar garowgiisu uu hadeerto uu underway yahay ama uu wadada iyo jidka kusii jiro. Waa barnaamijkeena warwareyn. Qodobo kale oo xasaasi ayaa raaci doona oo ay ka mid ka tahay ninka cusub ee loo magacaabay golaha ammaanka qaramada midoobay Mareykanka iyo sida hay'ad ka mid ah hay'adaha waaweyn ee dalka Mareykanka ay Israa'iil iyo Tel Aviv looga maamulo ayaad ku ogaan doontaa iyadana. Waa wararka iyo fahamka xogaha dhinaca diblomaasiyadda heerka sare ee soo dhow. Michael Waltz ayaa loo magacaabay loona ansixiyey ugu dambeyntii inuu golaha ammaanka qaramada midoobay uu u joogo dowladda Mareykanka isla markaana uu noqdo danjiraha madaxweyne Donald Trump uu u igmaday arrintaasi. Michael Waltz waxa uu ahaa la taliye amniga qaranka ee muddada kooban ee madaxweyne Donald Trump. Michael Waltz waa ninkii go'aansaday in uu si dhaba ugu soo daro gole signal group ah oo loogu talagalay inay ku wada hadlaan tuweynta dalka Mareykanka. Wariye ka tirsan wargeyska Politico oo la aaminsan in uu ahaa wariye Yahuudi. Arrintaasi waxaa ka dhashay su'aalo aad u xoogan. Goobta lagu soo daray ninka wariyaha ah waxa ay ahayd meel ay ku jireen kaliya saraakiisha amniga qaranka ee ugu sarreeya dalka Mareykanka. Wuxuuna ahaa niqaash goobeed signal group ah waxaana loo yaqaanay the signal scandal waxaana ahayd fadeexadii loo yaqaanay signalka. Waxa kaliya laga wada hadli jiray halkaas waxay ahayd in si kumeel gaara guddiyo kala duwan oo military iyo kuwa amniga qaranku ay kaga niqaashaan kagana wada hadlaan weerarkii madaxweyne Donald Trump uu ku bilaabay kooxda Xuuthiyiinta dalka Yemen oo uu doonayay inuu kaga hortago waxa uu ugu yeeray weerarada xiriirada ee kooxdu ay ku haysay maraakiibta ganacsiga ee badda mushaaxaya taasoo madaxweyne Donald Trump ujeedada uu kala ay ahayd inuu hoga tusaaleeyo ballanqaado dhowr ah oo sameeyay oo ahayd inuu kooxdaasi ka joojinayo falwaalida dhinaca waxa uu ugu yeeray ee qaraabashada. hase yeeshee arrinta waxay u ekeed mid si ulakaca loogu soo daray wariye ka tirsan Politico ayaa ku tilmaamay in amniga qaranka dalka Mareykanka la jabiyay. Laakiin isla markiiba dhowr su'aalood ayaa la isweydiiyey oo ah yaa ku soo daray. Waxaa la ogaaday in qofka ku soo daray uu ahaa Michael Waltz. Taasina waxay noqotay Michael Waltz xilka looga qaado la taliyaha amniga qaranka. Laakiin si hay'ad ka mid ah hay'adaha ugu muhiimsan ee dalweynaha Mareykanka in loo dhiibo ayaa iyaduna su'aal kale darbo keentay. Shaqada xubinta joogtada ah ee golaha ammaanka dalka Mareykanka u fadhida waxa ay hadaba ay tahay mid aad u baahan macluumaad badan kaasi. Waata koowaad waa xubinta kaliya ama waa safiirka kaliya ee ku jira golaha amniga qaranka dalka Mareykanka waa koob. Waana xubinta kaliya ee sidoo kalena ka mid ah cabinetka ama golaha wasiirada dalka Mareykanka shirka golaha wasiiradana fadhiisato. Waana xubinta kaliya ee mar walba madaxweynaha dalka Mareykanka xogaha dhinaca amniga qaranka oo dhan qaabilsan. Haddaba ninkan la aaminsan yahay inuu Israa'iil u shaqeynayay sababtoo ah inuu wariye Israa'iil u shaqeeyo ama Yahuuda ku soo daro awal bay fara ku gudbin waa maxay ujeedada loogu magacaabay. Sida dhabta waxa weeye horta marka horeysa inaad fahanto hay'adan golaha ammaanka qaramada midoobay qofka u fadhiya Mareykanka waa ruuxa ugu badan ee Israa'iil u shaqeeya. 6 qaraar ayaa codka diidmada qayaxan dowladda Mareykanka ee veto u isticmaashay 23 bilood ee ugu dambeeyay Israa'iil ee dagaalka aadka u baahan ay ka waday kuna haysay dhulka Falastiin. Taasi macnaheedu waxa weeye in dowladda Mareykanku ay noqotay in ay isku qaawisay. Inta badan qaraaradu waxay ahaayeen kuwo ay isku soo raaceen 14 dal. Labadii ugu dambeeyay ayaa tusaale ku ah. Golaha ammaanka waa 15 xubnood. 5 waa joogto waa Mareykanka, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo dalka Ingiriiska ama Britain.
joogto waxaa laga wadaa waa 5 dal oo ayagu aan marnaba dhicin, waxayna leeyihiin codka diidmada qayaxaanta veto oo ah veto power ama awood is-hortaagis ay ku hortaagi karaan wax kasta oo golaha ammaanka qaramada midoobay intooda badan isku raacaan inay ansixiyaan. 14 dalba labadii qaraar ee ugu dambeeyey oo ku dalbanayay xabajoojin iyo sii deynta dadka la haysto waxay ahayn kuwo aysan u kala xarin, hase yeeshee joogsiga uu Maraykanku hor istaagay ee codka diidmada qayaxan ku hor istaagay ma ahayn wax iska yar, arrin sahlan arrintu ma ahayn. sidaa daraaddeedna waxaa lagu tilmaamay inay mar walba ay muujinayso in hay-adaasi qofka u jooga mar walba uu noqon doono mid talaabiib xaggeeda laga amro. Michael Wallace in uu helo codadkii ugu yaraa ee aqalka sanadka 47 ayaa uu ansixiyey, halka 43na ay diideen, waxaana fadhiyey 9 xubnood, 10 ayaana maqnaa. sidaa daraaddeedna 3 haldheeri ah 4 haldheeri ayuu ku helay. taasina waxay ka dhigan tahay ayaa layidhi sida aadka u cad ama u muuqata ee ninkaasi aan loogu sanbanaanayn. haddaba in Maraykanka xogtiisa la faafiyo oo weriye lagu soo dhex daro, weliba weriye wargeyska Politico oo ah wargeys la aaminsan yahay inay sahanuniyadu leedahay, waa arrin iska yar maaha. isla ninkiina in dib loogu soo celiyo mar kale ayay muujinaysaa arrintaasi. dowladda Maraykanku markii qaraarkii ugu dambeeyey is-hortaagtay Khamiistii waxay ku tilmaantay in ay tahay ujeedada ay u hor istaagtay qaraarka oo xitaa dalbayey in sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan loo soo daayo dadka maxaabiista ee la haysto, iyo in sidoo kale la joojiyo dilka iyo barakicinta, xabad joojin degdegana la sameeyo, iyo in gargaar loo ogolaado dadka reer Gaza. intuu ma ahan wax ku jabnaa, laakiin dowladda Maraykanka ayaa hadalkii halkaasi ka jeedisay xogayaha ku-xigeenka ergeyga qaramada bariga dhexe u qaabilsan Maraykanka Morgan Ortagus waxay tiri waa inay Xamaas marka hore isdhiibaan. waa hadallada uu ku tiraabo islamarkaana uu ku hadlo Netanyahu. in Michael Wallace loo magacaabana waa arrin kale oo muujinaysa Maraykanku meesha uu aaday. haddaba taas haddana laga kaga gudbo, maalmihii ugu dambeeyey ama 24 saac ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay hadal madaxweyne Donald Trump uu ka yidhi iyo hadal hore oo uu ka qoray iyo mid dambe oo uu ka qoray Soomaalida. markaan ku leeyahay Soomaalida waxaan rabaa inaan kuu sheego cidda uu ka hadlayaa waa Soomaalida. waxaa dhacay dhacdooyin la yaab leh oo aad iyo aad looga argagaxo oo muujinaya aragti gaabnidii ugu weyneed ee qaar ka mid a ummadda Soomaaliyeed. khaladaadka Ilhaan Cumar shakhsiyan iyaduna ay geysanayso oo iskortaagi doono, iyo waxa loo yaqaan markaas caadifada cunsurinimada ah ee Donald Trump uu sameeyey. 3 arrimood intaanan horta aanan mid walba gaarkeeda isku dul taagin, marka u horeysa aynu eego nuxurka hadalka Donald Trump. marka u horeysa maxaa hadalkan keenay? hadalka waxaa ka keenay nin ayaa dhintay la yiraahdo Charlie Kirk. 10kii bisha ayaana lagu dilay ninkaasi toogasho. ninkaas wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo conservative ah oo runtii dadka dhalinyarada ah ee jaamacadaha ayuu la doodi jiray. wuxuuna ahaa nin hadallo adag dhiiba jiray oo markaasi aad ugu kacsanaa dadka soo galootiga danaha Maraykankana oo jiray in uu taagan yahay. si kasta noqotaba ninkaa waa la dilay, xabad toogasho ayaana lagu dilay. xorriyadda qowlka ayaana lagu tilmaamay in weerar lagu qaaday. ninkaasi dagaal kuma uusan baaqi jirin, laakiinse hadallo kale oo cunfi meedhan ayuu dhihi jiray. si kastay noqotaba dilkii ninkaasi Ilhaan Cumar waxay la hadashay nin la yiraahdo Mahdi Xasan oo wariye ah, waxayna sheegtay inuu ninkaasi way eedaysay marka la soo koobo. inkastoo ay sheegtay inuusan u qalbin in la dilo, haddana eedayn aad u xooggan ayay sheegtay. waxayna ka daba qaadatay hadalladii uu dhihi jiray ee uu ka yidhi George Floyd iyo dadka madowga ah, hadalladii uu ku weerari jiray. marka la soo koobo, Ilhaan waxay xilligaas hadalkeeda ku soo beegtay xilli xasaasi ah oo dadka caddaanka dhexdoodana buuq ka dhex jiro, sidoo kalena ay xaaladdu meel aad iyo aad u qaraan marayso. inta badanna ayagu ay isku muuqdeen oo aan dadka soo galootiga aanan loo jeedin ama arrintu aysan ku soo foorarin, maadaama xataa uu hadalka gaarsiiyey gudoomiyaha gobolka Utah inuu ku ducaysanayay in qofku uu noqdo qof aan dadka Maraykanka ka soo jeedin ee uu ahaa lahaa qof dibadda ka soo jeeda. hase yeeshee waxaad moodaa in halabsiga hadalka ay hadlabsatay Ilhaan Cumar uu keenay in jawgii oo dhan uu isbedelo, isla markaana lagu tilmaamo qof Maraykanka neceb, dad Maraykanka neceb Soomaalida iyo arrimo noocaas oo kale. Trump ayaa haddaba hadalka Ilhaan Cumar waxa uu yimid kadib markii haweeney aqalka Koongareeska ka tirsan ay Ilhaan Cumar ku soo eedeysay in ay tahay in la cambaareeyo oo laga cunaqabateeyo saamaynta ay ku leedahayna aqalkana laga qaado. hal cod ayay Ilhaan ku badbaadi. waxaa fadhiyey golaha 200, waxaa fadhiyey 420 iyo waxaa fadhiyey 427 ayaa fadhiyey 214 ayayna ku badbaadi, halka 213
ay ka codeeyeen hal cod ayay ilhaan ku sigatay in marka u horeysa guddiga laga saaro kadibna la ganaaxo dabeedna ay ku xigtay in kongareeska laga saaro trump ayaa haddaba la weydiiyey isagoo diyaaradda air force one saaran wuxuu ku tilmaamay naagtaasi in ay wasu hadalka wareegay wuxuu yihi naagtaasi waxay necab tahay ayuu yidhi maraykanka mana ahayn ayuu yidhi iyadoo kale in ay ku jirto wuxuu yidhi waxaa la yaaba ayuu yidhi dadka soomaalida ah ee soomaalida ah wuxuu yidhi horta dowlad ma leeyihin madaxweyne ma leeyihin boolis ma leeyihin golayaal ma leeyihin ayuu isweydiiyey wuxuu sheegay hadal dambe oo horey u qorayna dib ayaa loo soo celiyey trump ma uusan joogin weeraradiisaas qoraal kale ayuu soo qoray wuxuuna ku baaqay in haweeneydaas laga saaro aqalka koongareeska wuxuu kaloo trump intaas kagama hadhin uu sidoo kale uu soo qoray warbixin isla maalintaas soo baxday oo xubno isugu jira dad kale oo afrikaana iyo soomaali lagu maxkamadeynayo gobolka minnesota oo la sheegay in barnaamijka dhinaca caafimaadka medicaidka la yidhaahdo ay dhaceen ama ay xadeen ayaa markaasi uu soo sheergareeyey isla markaana waxa uu markaasi lagu soo sheergareeyey sidoo kalena bogga aqalka cad taasoo beegsi ahayd marka u horeysa aan iskortaago markaa trump iyo ilhaan mid walba gaarkiisa iskortaago kadibna waxaan u soo noqonayaa dad soomaaliyeed oo arrintaasi si falliwaale ah runtii la odhan karo waa dameer xumadii qarniga ugu weyneed uga falceliyey marka horeysa arrinta ilhaana ka horey ilhaan tan iyo intii aqalka koongareeska loo doortay ee aqalka koongareeska ay soo gashay kama aysan shaqaynin danaha soomaalida marka xaqiiqda laga hadlayo ilhaan waxay la shaqaysaa kooxo kale laba kooxood oo kale ayaa la shaqaysaa oo marka xaqiiqda le waa qof mas-uula moogta haddaan runta isku sheegina wixii ka xun sheega waa been ilhaan laba qolo ayaa la shaqaysaa qolo waa dadka doorta ilhaan soomaali ma doorato degmadeeda shanaad ee gobolka minnesotana uma badna soomaali dadka ugu badan doortana waa dad markaasi mabaadi ku doorta oo ah dad yow kala duwan oo markaasi soo galootiga u hiiliya isla markaana afkaaro markaasi aad iyo aad u adag aaminsan aad afkaaro maartay inagu hadeerta halkan ka sheegna aaminsan dad marka isku diversity oo isku jira ayaa doorta ma aha yacni dadka ugu badan ee doortaa soomaali ma 80 70 90 kun oo cod baa lagu heshaa taasoo qodob ilhaan markaa qodobka labaad dadka ugu badan ee taageera waa dad carbeed dad caraba oo dhaqaalayahano caraba ayaa taageera oo dhaqaale ku taageera iyo dadka kale ee maraykanka waana dad maraykana dabcan dadka taageera ilhaan lafteeda oo dee carab maraykana yani carabta ayay ku xirantay qaarkood at the same time ilhaan qaar ka mid a carabta ways hayaan sida sacuudiga iyo imaaraadka especially sacuudiga imaaraadka dhawaan waba heshiiyeen baa layidhi taa waxaa kasii daran ilhaan dad badan oo soomaaliyeed waxay u arkayeen inay noqon lahayd qof isku soo dhoweeya soomaaliya ama soomaalida iyo maraykanka fursad noocaasoo kale inay haysatay sababtoo ah ilhaan maadaama ay ka timid waddan dhibaataysan oo dowlad adag aysan ka jirin dadkiisu ay dacdaraysan yihiin ayaduna qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee aqalka koongareeska gala iyo weliba muslimkii ugu horreeyey ay noqoto inkastoo gabdho kale dad kale muslim markeedma soo galeen ee naaga haweeney ah ay noqotay waxay haysatay fursad dahabi ah oo ay ugu tudho soomaalida maraykanka jooga qaarkoodna ku soo socda qoysaskooda kuwa doonaya inay keensato markan ay abuurto in relationka u dhexeeya maraykanka iyo soomaaliya ay u noqoto tusaale wanaagsan ma aysan dooran ilhaan daba taas ilhaan waxay dooratay in siyaasadda foreign policyga iyo domestic policyga siyaasadda qaraadh ee maraykanka gudaha iyo tadabadda ay ka dhex muuqato dadku waxay leeyihiin ayadu waxa ay ka heshaa buuqan waxayna doonaysaa inay saa celebrity ku noqoto ayadu shakhsiyan qof caana qof walba maraykana yaqaano ma noqotay almost qof kastoo political classka maraykanka ku jira ama wararka maraykanka akhrista oo maraykana wuu yaqaanaa maanta hadday iyadu doonaysay inay noqoto qof caana oo aad looga yaqaano siyaasadda maraykanka way tahay hadday laakiinse taa noqotay taa macnaheedu maaha in ay dadka tusaale ahaan ilhaan ka soo horjeeda dhammaantood ilhaan waxay gudbisay nacayb aad iyo aad u xoogan oo ayada keliya aan ku ekayn ee soomaalida xitaa gaarsiisan waa marka runta laga hadlayo sababto waa dadka iyada kasoo horjeeda yacni dadkan loo yaqaano conservativeka qof kastoo conservative ah oo arka ilhaan ayada keliya nacaybka uu qabo kuma ekeeyo ee wuxuu soo gaarsiiyaa soomaalida maxaa caddayn u haynaa madaxweynaha maraykanka ka mid
aqalka xubnaha intee jeer oo xubno oo congress ayaa ka keenay qaraaro waa qofkii ugu badnaa qaraaro laga keeno la doonayo in lagaga saaro gudiyada in lagu mariyo anshax iyo in weliba dhibaatooyin aad u xoog lagu sameeyo taasi waxay saameyn taban iyo mid markaasi taaganba ay ku yeelatay Soomaalida sidaa daraadeed taas waa qodob dadka kale ee ilhaan taageersan ayagu martay ama ilhaan taageersan xataa ilhaan waxyaalo badan oo khaladaada oo ay sameynayso ay qirayaan xisbigeeda dimuqraadiga ku daro oo ay leeyihiin yani way ka badbadinaysaa dhibaatooyin bay gelinaysaa xisbiga iyaga dhibaato u keenaysaa waxay ku qoraan barahooda bulshada waxay yidhahdaan macnaha xisbiga iyaga waxay ka dhigaysaa xisbi taageero dad aan maraykanka jeclayn habdhaqankeedu wuxuu nama caawinaya ayay qaarkood dhaha waxaana dhacday hadda dhowr jeer xitaa in la difaaci waayey khaladaada ay samaysay xitaa xisbigeedu in mar la kirbaasho xitaa ay ku taageereen ilhaan marka fursad markay arrintaas haysay waxay ka doorbiday ilhaan in ay ayadu la hadal hayo inay qof controversial oo la hadal hayo inay noqoto waxa xaqiiqda dhabta ah marka laga hadlayo oo gabadheeni oo gabar Soomaaliyeed waa proud baynu ku nahanay inay wax noqoto laakiinse waxay dooratay inay buuq aad iyo aad u xooggan ay samayso ilhaan marka siyaasad ahaan markaynu fiirino ma oran karnaa siyaasadda dalka Mareykanka ma fahansan tahay oo ma garan kartaa oo ma tahay qof siyaasi oo yiraahdo alale maanta daad baa soconaya ha isku dhigan waa maya waana ku cadeynaya saalan ku siinaya Charlie marka la dilay ninka la yiraahdo Charlie Cook marka la dilay waa aniga idin sheegay warka inta hore waxaa meesha ka dhacay oo meesha ka muuqday in uu Trump iyo ragga taageersan ay lahaayeen waxaan doonayay inuu qof sheeyaan noqdo kadib waxaa dhacay clash ama political clash u dhaxeeya dadka cadaanka dhexdooda labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga raggii waaweynaa iyo gabdhihii waaweynaa iyo warbaahintii waaweyneed iyo commentatorskii iyo comediankii ayaa dagaalamayay yani arrinta dadka soo galootiga shaqo kuma lahayn ilhaan ayaa soo dhexgelisay marka iyo ninka la yiraahdo Mahdi Xasan asagaa soo xidhay ilhaan waxay gara weyday in ay tiraahdo arrintan maadaama arrin xasaasiyana ay tahay waqti xasaasiyana ay u muuqato xisbigii Trumpna uu wadanka haysto aadna ay uga faa'iideysteen iskada wax kale warbaahinta waaweynaa dalka Mareykanka aysan duleeyeen cid walba Mareykan ay kibaasheen adigu waxba dadkaagana eed ha u soo jeedi adiguna isku arrintan haba comment gareen haba halkaaba kaga baxba maxaa day sheegay nin qofka wariye ku weydiinaya arrintan ka hadlo marxo simply marka horeyso markuu soo wacay u sheegi kartaa arrintan hadda inaan ka hadlo arrin xasaasiya mar rabo aysan ahayn hadda waxyaalaha la isweydiin karo waxaa weeye ilhaan hadday leedahay Charlie Cook khaladaad buu galay oo arrimu sameeyey maxay uga hadli weyday markuu noolaa maxay ula doodi weyday markuu noolaa hadday rabto inay muslimka ka celiso ama uu dad kale maagayo ka celiso maxay markuu noola ula hadli weyday haddeerto waxaa loo arkaa nin victim waa nin la dilay waxbad lagu dhuftay laba caruura ka tegey dhalinyaro ahaa 31 jir ah qof kasta Mareykan saas u arkaa qof mucaarad ku ahaa iyo qof muxaafid ku ahaa u fiirso rag badan baa ka hadlay oo hadaladiisa diidanaa tusaale yar buu Obama ka hadlay Obama gaf shakhsiya buu u geystay ninka la yiraahdo Charlie Cook naagtiis wuxuu ku tilmaamay in aysan caqli lahayn oo aysan fursadaha ay heli karto aysan ku helaynin caqligeeda iyo aqoonteeda ay ku heshay garbation ayuu ku tilmaamay Obama markuu ka hadlayay wuxuu u cabaareeyay dilkiisa wuxuu ku tilmaamay nin afkaartiisa kula duwanaayay wuxuu ku tilmaamay naagtiisa inuu saa ku tilmaamo xaaskiisa uu maago inuusan ku raacsanayn same time haddana wuxuu sheegay in dhalinyaro ah mustaqbal fiican lahaa oo dalka Mareykanka ka dhex muuqday oo malaayiin taageersanaayeen la dilay fiiri yani Obama waxay kula tahay Obama iyo ilhaan kaba awood weyn kaba Mareykanka laga jecel yahay wuxuu Obama daadadkan suugu dhigi waayay dadkiisa madowga buu u naxayaa dadka madowga inaysan ku wiirsanayn inaysan arkiba warka leh naga hadda maanta qof walba Soomaaliya waxa loo arkaa halkii qof inoo hadlayay inuu ku wiirsaday wiil yar oo cadaan oo la dilay oo dhalinyaro ahaa oo laba aaba ahaa laba caruur haystay oo si xaq darro loo dilay si Mareykan qof kasta oo Mareykan aaminsan xaq darro loo dilay way wuxuu kuleeyay ninkani qorina muu qaado dabna muu qaado uu hadli jiray ninuu hadli jiray bay ka soo qaadeen waa freedom of expression kisa lagu dilay ayay kuleeyay iyo political maartay wuxuu aaminsanaa ilhaan markaa waxay u baahan tahay markaa la talin sax hadday qaadanayso oo dhageysanayso laakiin waxaa la yiraahdaa sidoo marka bankarka maartay webiga markuu soo go'o haddaad isku dhigto
waxa ugu daran adoo intaad isku dhigtay carruurtaadina u dhigay adigu haddaad doonaysa inaad isbiimayso dadkan masaakiinta ee soomaalida ay indhahoo dhan wada saaran yihiin ee minnesota waxa ka soconaya marka horeba lagu haystay ee muslim baa tihiin lagu haystay ee waddankiinibaa xun iyo dad xun baa tihiin lagu haystay horta inay ka fikirto way taa arrinta xaqiiqda horta waa taa marka ilhaan hadday maraykanka soomaalida uga faa'iidey weyday oo leverage-keeda iyo miisaanka ay ku leedahay golaha congresska dalka maraykanka sida maraykanka ay uga faa'iidey weyday oo heshiisyo uga keeni weyday oo ay in liiska laga saaro travel banka ay ku guulaysan weyday oo ay ku guulaysan weyday in saaxiibtinimo America Soomaaliya friendship la sameeyo oo ay ku guulaysan weyday in suuqyada maraykanka alaabaheena qaar loo furo oo ay ku guulaysan weyday in maraykanku xataa uu inaga reebo dhibaatooyinka gaarka ah uu nagu hayo inta badan ku guulaysan weyday in ay isku daydo maaha inay dadka Soomaaliyeed maraykanka jooga inay eed u soo jiido macnaheedu taas maaha inaan baqayno laakiin macnaheedu waxa weeye of course waxaa la fiiriyaa horta sideedaba sax socda marxaladda iyo bay-adu markay kacsan tahay dalka maraykanka waxaa laga baqayaa dagaal sokeey gabdhaheennu iyagoo xijaaban bay maraan carruurteennu xijaab bay iskuullada ku aadaan masaajidadeennu way camiran yihiin maraykan marka la joogo of course maraykanka dadkeenna soomaaliyada oo dhan 89% ka badan 95% sharci bay ku haystaan waa muwaadiniin maraykan ama waa dad muwaadiniin sugayaale jiilkeennii labaad saddexaad baa bilaabay inay ku dhashaan baa bilaabay yacni markaad qof dhalinyaraha oo aad loo yaqaano dad badan jeclaayeen dad badanna u tacsiyeeyeen waxtaan jeclaan aad maagto midda kale inaga dhaqanka islaamka iyo dhaqanka soomaalida midnaba kuwa jiro qof dhintay in wax laga sheego this is ridiculous yani nin dhalinyaraha oo dhintay maxaa wax uga sheegaysaa annaga moogta mar walba inaynu nahno annagaa nala dulmiyey annagaa nala cusriyey waa inaan khaladkeenna qaadano tan kale arrintan waa arrin aad iyo aad xasaasi u ah is very sensitive sensitivitygeeda ayaaba cirkaa maraya maxaa adiga kugu wata maxaa adiga ninkaas maxaa haddaad doonaysa inaad Charlie Cook haddaad doonto inaad weligii haddaad ugu rabtid weligii allihii Soomaali si gaar ah uma soo hadal qaad adigu haddaad si rabtid in aad ka hadashid markuu noolaa maad la doodid maad u jawaabtid maad u samaysay qof u jawaaba ku taageertid maad yani laakiinse markuu dhintay maxaad ka ma mid canaantaa la yidhahdaa qofkaas oo kale taasi waa arrin runtii meesha ku jirta waxayna runtii soo duuday daadad iyo dagaal awalba dhex socday walaalay hal talaan ku siinaya dadkan ayaga is haystay dadkan ayaga isku mashquulsanaa iska daa tan kale dhula dhacaaga hubso waa talo dadka Soomaaliyeed ogowna kaliya maanta matid magac baad wadataa Soomaaliya wadataa khamaarka yar meesha ku saaran kaliya la eeganaya kaasi iyagu xijaab u yaqaanaan aan xijaab ka ahayn halka yar madax kugu xiran masarka yar madax kugu xiran bay xijaab u yaqaanaan waa dadka halka aragtidoodu ay tahay يعني وتصوتس تكله ترام بالدولة الفدرالية الصومالية بماجي بس تذكر الصوماليات بماجي وينظروا إلى كل جروي أنت ترام دولة الفدرالية الصومالية حسن الشيخ محمود كوحدة حمر شوكته آذن مذوب حمسة سعيد عبد الله دني أحمد هبل كمذوبي مو ماجي من كمان هذي من يقان ترام وقت تذكر عاي في الجدينة يواص الصومالي ده وتشينسك الصومالي ده هو عاي وعنصري وانا عنصريات إلهان عمر أيانا سوتشي دي بعد هكرا وأيو أسوي بالعنصري أول بأنه وحولي أنا أوي بسعنا يقصي تشوكسي أيو لينكي أول بأسوي عنصري أها دو هذا نروح على تانس بيشكر هذين مركوالك وكر هذين يا إنه ده تذكر الصومالي ده يا محماه إك فيري وحولي الصومالي ده wadadku waddanku soo baabasay aan dawlad lahayn aan waxba ahayn asaas ahayn kana ahayn ayaa doonay inay waddanka wallahi dadka wadada jeclahay macnaha wallahi dadka fariidnimadooda waan la yaabsan waddankooda way soo gubeen soo baabiyeen waasa waa cunsuriyad waa beegsi laakiinse xaqiiqatan spark waxa loo yaqaano iyadoo contextkii iyo environmentkii oo dhan oo framing ku jirta oo dabka saa u helcaysa sparkling maartay ay socoto maartay period ayay ilhaan dabka taartay isaguna waa meel aan rabay roomago hal arrin hadda bilo waran ma waxaana ayaan daraa marka qaar kamid ah dad aan ku arkay x ka bartan Twitter ka lagu yaqaan oo Faysal Cali Waraabe hogaaminayay inay u qaateen in xamar iyo lacaayo garow qadaad weyn bal caay wala weyn waxa la caayay maxay tahay sheegeen in dawladooda fashilantay dalka fashilmay buu
ninkani dad buu ka hadlaya. dadka Minnesota jooga soo qaar Hargeysa kama iman, dadka Ohio jooga soo qaar Hargeysa kama iman. horta waxay ku tusinaysaa maangaabnimada iyo aragti gaabnimada meesha ay Soomaali ka gaadhay. waxay kala garan waayeen Trump hadduu doonayo Trump inuu Soomaaliya xiriir uusan la samaynin. safiirka Soomaaliya wuxuu joogaa Washington, safiirka Mareykanka wuxuu joogaa Richard Harley wuxuu joogaa Muqdisho. hadduu doonayo qofka uu u jeedaa waa ilhaan oo Soomaali ahaan uu u sii maray una sii durxolay codbixiyaasha Mareykanka uu ku soo jeedinayo uu leeyahay dadkan waa dad xun, waxa la caayana waa Soomaali. anigu goorta Soomaalinimada iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda xamar ka jirta la kala garan waayay baan garan waayay. xataa in la qiyaasi kari waayo war Trump hadduusan dowladda Soomaaliya aqoonsanayn dee wuu iska socay lahaa safiirka mana aqoonsanin buu dhalo ku dhawaaqay. Mareykanka waa aqoonsan yahay Soomaaliya, wada shaqayn buu la leeyahay. taliskiisa ciidanka jooga, Kismaayay joogaan, Boosaasay joogaan, Xamar bay joogaan, way ka shaqeeyaan. siyaasadda safiir buuxay ku leeyihiin. waxa la caayay Soomaali bay ahayd, ama Soomaalidana idinku waad ku jirta Soomaali baa tahay, ama af Soomaali baan ku hadlaa dheh, ama ayaan ku hadlin dheh. gruubka dhalinyarada xataa waxaa aad iyo aad aan u xanuunsada, aad iyo aad ii danaqday qof magac watay Sharmaarke oo Soomaaliya. waxaa u saaran markaa bartiisa egiska waxaa u saaran qof ila eka aqoon leh dhalinyaro ah. ninkaas haddaan ku qiyaaso wuxuu ahaa 40 jir ilaa iyo 39 jir. waxaa u saaran markaa bartiisa egiska hadal dooda oo niman aqoon-yahan oo Soomaaliya oo mar la doodayo jasiire ah baa u saaran. wuxuu qorayaa Trump haddii uu maanta kala saaray Soomaaliyada fashilantay hadduu mar caayay. war waddan dowlad Soomaaliya oo fashilantay ninkan muu caayin, dad fashilmay buu kugu sheegay including you, adigu aad ku jirto. مسقالات حاجة جرتها تدمداد يعني تدمداد عاون حاجة لجوا أركي عربته العقرات هنا كل قد سويت عليه فلسطينيين تسال لو قال يسال الله ينايو إلا عاية موكرة مصاري ده قف مصاري بالأوروق مصاري حكت هذا أفتح السيسي وتوك أو لشد اللي قتش حي وناكتي عروتي اللي قالها هاي وإخوانه سلوا قال وليس قال يحسد القدرة الكوك كاسو هذا يا والله هذا القدرة هذا بس هذا القدرة هذا وطن كاجوا وطن وسخ هذا كا وطن وسخ هذا القدرة الكها جوا مغني تميرك يعني يتدمر وهرك مرة وروح العاية وصومالي وديرك صوماليا وتدمر الصومالي ده and by the way سكران كوجود جيالا هديبه حتى ترى waxa uu dadku caayo xaweye dawladoodi way burburiyay way soo kuwan idinku aad ku faantaan ay tiraadaan dawladii afweyne anaga ridnay. marka ay specifically dadka sabab ku socotaaba dadkii dawladda riday baba si gaar ah loo sicaaya hadii la kala saaro oo runta la isku sheego Sooma maxaad ugu farxaysaa Soomaali la caay af laga darayo oo nin cusuri caay oo codad ku raadinayo oo waliba dadkiisa ku mideeyay oo maanta dadkii cadaanka ay baraha bulshada iska caayay ay hal mar ilhaan Cumar iyo Soomaali ku soo jeesteen maadaama ayadu ay soo qorayso inoo soo jiiday huurkeena soo socday iyaga walba say isugu jiray. waxaan maqli jiray Soomaalida hore qaar kamid ah waxa nin qoraayo Ingiriis wax ka qoray wuxuu yiri ayagoo isleeyay u tagaysaa kadibna wax dhahaysaa mid kamid ah garaac soo kugu soo jeesanayaan Soomaalida hore saxay. meeshan waxa ka socda waa wax aad iyo aad hal talansiinaya dadka noocaas oo kala damiirkiina Soomaalinimada iyo akhlaaqdiina islaamnimada dib ugu noqdo arrimaha noocaas oo kale ka joogsada iskana daaya arrintan cadaawadan aan macnaha lahayn. Trump waxba ma tari karo idimana Somaliland ma jeclaa karo Soomaaliyana ma nici karo si kala dad kugu dhigo wuxuuna u yaqaanaa Soomaaliya hal dad oo fashilmay buu ku yaqaanaa waxa uu ka hadlayana waa dadkii Soomaaliyeed. dawladda Xasan Sheekh Maxamuud baa fashilantayna si gaar ah arrintu uma aha ayadoo la ogyahay in dawladda Soomaaliya ay qayb ka tahay jileecan iyo waliba dawladdan iyo foreign policy iyo dabci ay qayb ka tahay haddana isagu wuxuu hadda u jeedaa waxaan ka hadli maayo the current government la hadli maayo Xasan Sheekh Maxamuud la hadli maayo kii ka horeeyay la hadli maayo wuxuu la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed halka noogu timid waa soo fashilantay dalkii waad soo gubteen oo Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Xamar iyo Laascaanood iyo Buuhoodle iyo meel walba ka soo jeeda buu la hadlayo leeyahay wadankii waad soo gubteen anaga rabtaan aan xasan qaybta kale daawashana qiimaha badan aan eegi doono. Israa'iil waxay sheegtay in 100 diyaaradood loo soo diray arrinta dooda maanta hilfaha la isku qaado ha laga hadlo inaan Cumar runta loo sheego kooxaha noocaas oo kale aan runta loo sheego. Trumpna inuu cusur yahay walba weyn ogeyn ninba wuxuu hebel ba ku caayib sida awalba hebel dacol baan ahay
waxaa la yaaba marka dadka noocaas oo kalea in runta loo sheegaa wanaagsan ee dabashana qiimaha badan ee dadka maskaxa ka wasakheynaya 100 diyaaradood oo drone ah iyo diyaarado kale oo istaraatiiji ah ayaa la sheegay in ay Israa'iil ay sheegtay inay Masar soo daabushay sida ay sheegayaan laba wargeys oo kala duwan wargeyska Bohol iyo weliba warbaahinta gaarka ah ee warbaahinta guud aan dhaho ee Kan 11 loo yaqaano ee public broadcasting warbaahinta guud ee Israa'iil labadu waxay qireen in ay maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay soo socdeen diyaarado Trapela ilaa iyo 100 diyaaradood ayay masaaridu soo dirtay kan waxa ay sheegtay in ay jiraan shaqooyin aad u xooggan oo dhinaca waranwaraynta waxay ugu yeedheen gobyaalis ama waxa loo yaqaano rondo iyo weliba ciidamo khaas ah oo si aad u ba'an uga soo soconaya dhinaca waddanka ayay yidhaahdeen Masar kuwaasoo adeegsanaya agabyo diyaarado drones iyo kuwo kale waxaana la soo dhoobay qaarkood ay yidhaahdeen xuduud xiisadda labada dal ayay ku tilmaameen inay sii darsanayso boqolkan diyaaradood ee noocyadooda kala duwan leh waxa ay kor u kicinayaan xiisadda iyo diyaargarowga dhabtaa ee masaarida sida runta uga soconaya ayuu wargeysku yidhi wargeysku waxa uu sheegay in ay socdaan sidoo kalena shaqooyin ilaalin iyo indha-indhayn ah oo basaasid ah oo ay dowladda dalka loo yaqaano Masar ay wado Masar ayaa aagii loo yaqaano border guardka ciidamadii u joogay ee ilaalin jiray xuduudda u bedeshay aag military sidoo kalena geysay halkaasi ciidamo iyo agabkii ugu badnaa waxay sheegeen in diyaaradahan qaarkood ay gudaha qasa soo galeen qaarkoodna ay sideen hub iyo saanad kuwaasoo ku degay ama ku duldegay meelo dhowra waxay ku tilmaameen meelaha lagu duldegay oo dhan inay u muuqdeen kuwo lagu gaarsiinayo hub iyo saanad kooxda ururka Xamaas wax loo maleynayo si ay usii daba dheereeyaan dagaalka aadka u ba'an ee soconaya tan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay isku qurinayaan arrintan waxay kor u sii qaadaysaa baa layidhi xiisaddii awalba u dhexaysay dowladda maamulka madaxweyne cabdifataax asiisi ayaa la sheegay inay geed dheer iyo geed sareba oo geed gaabanba u saaran tahay sidii ay u xaqiiji lahayd in Israa'iil aysan riyooyinkooda falliwaalida ahi aysan u hagaagin isku soo wada duuduub oo bariga dhexe weli xaaladdiisu way sii adkaanaysaa Israa'iil waxaa la sheegay in ay hadirta rumaysatay in carabtu ay ka run tahay xanaaqa ay xanaaqsan yihiin isla markaana ay ficil u bedelayaan tan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kalena sidii aynu horeyba u hilaadinay dowladda Pakistan ay ku dhawaaqday in hubka nukliyeerka ay u jiidi doonto Sacuudiga wasiirka gaashaandhigga dalka Masar ayaa waxa uu sheegay wasiirka gaashaandhigga dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay wasiirka gaashaandhigga Pakistan ayaa xaqiijiyay in hubka nukliyeerka uu qayb ka yahay heshiiska labada dal ee Sacuudiga iyo Pakistan ay wada galeen magaalooyinka Islamabad iyo Riyadh ayaa lagu xarnay calamka labada dal ee aadka isugu eg ee midabka akhtarka ama cagaarka ah iyadoo dhanka kalena Khawaaji Casif uu dhanka kala sheegay in wadan kasta oo caalam islaami oo doonaya inuu ku soo biiro iskaashiga dhinaca military ee labada dal military pact uu yahay mid ay soo dhaweynayaan wuxuu sheegay in haddii uusan heshiiska qayb ka ahayn hubka nukliyeerka ah in loo jiido ayuu yidhi dhulkaasi barakaysan iyo sidoo kale Sacuudi Arabia aysan macnama samee lahayn ayuu yidhi heshiiska noocan oo kale tan ayaa durba wadna kurkur aad u xoogan ku riday si loo arko wadamada caalam islaami ay u xoogeysanayaan Israa'iil iyo reer galbeedka waxayna tan ka dhigan tahay in dowladda Sacuudiga markii ugu horeysay ay mustaqbalka dadkeeda si u badbaadi lahayd iyo sidoo kale xukunkeeda iyo xukuumadeeda iyo in ay isticmaali karto marka ugu dambeeyo dooqyada qaarkood ay muujisay isku soo wada duuduubo weli dunida oo dhan ayaa waxa ay falanqeynaysaa sida heshiiska Pakistan iyo Sacuudiga dhexmaray uu u noqon doono mid la ku kiciya wadamada reer galbeedka oo iyagu in badan isku dhigayay in ay wadamada carabtu ay noqon doonaan maxamiyad ay dusha ka sii saarnaadaan wadamada Qatar isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalal ay ka midka yihiin ayaa la yidhi Kuwait ayaa iyaguna hadirto waxa ay ka fikirayaan sidii ay tallaabo hor leh u dhaqaaji lahaayeen oo dhinaca iskaashiga militariga ee Pakistan iyo Sacuudiga ugu biiri lahaayeen dowladda Turkiga iyo Masaarida ayaa la sheegay iyaguna inay bilaabeen in ay markaasi sameeyaan guddiyo goglaalayaal ah oo markaasi sameeya degdejinta arrimo istaraatijiyadeed oo waaweyn xilli madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu aqalka cad ku sugan yahay dalka Mareykanka uu naawilayo in uu gaarsiiyo madaxweyne Trump carada taala bariga dhexe inaysan joogsanaynin ilaa inta Israa'iil ay joojinayso xasuuqa